يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إلهي هرتي سكرت وحيل ولا إنان هريك إيمان أون قذالك سوقلي أون مدك إيمان أون بدحك إيمان أون شتك أفريساني إن توضى بدن هلي ميسيدين يكوب شكريا شغا كلام عليه سيد النبي قال له صلوات ربي وسلام عليه كرسيgiisa carshigiisa ugu weyn biyo korkood bay saarayeen mamlakada uu ka maamulo adduunka ka maamulo ninkii leeyahay ibliis badaha iyo biyaha korkood ay saaranta halkaas uu jooga odayga ugu weyn halkaas uu jooga halkaas uu subaxdii marka ciidamada ka kala diraa bini aadamka aad arkaysaan ruux kasta oo kamida mid buu ku lamaaniyay oo shaqo uga dhigay shaqo kale ma leh isagu ma xamaasho ma shaqaysto hawl kale kuma mashquulo ma daaho adiga yu shaqadiisu waa adiga bal ka waran marka ka waran ma aragtid kuma muuqdo iskama riixi kartid candhuuf kuma tufi kartid si aad ka yeesho ma taqaanid kaama maqna adigii unbuu kugu lamaayay dan kalena ma lehee adiga dantaada inuu ku seejiyo unbuu doonaya bal ka waran marka soo khatar inteeda leeg ma khatar inteeda leeg haddana wuxuu kaa soo galayaa naftaadu yaqaana ruux walba naftiisu waxay jeceshahay iyo meeshay ka dabacsan tahay iyo bointiga ay ka jilicsan tahay buu garanaya markaasuu ka soo galaya mid baa wuxuu u jilicsan yahay xagga dumarka iyo shahwadu u jilicsan yahay xagga zinadu ka soo galaya dhankaasuu u jiidanaya isaga mid baa wuxuu u jilicsan yahay xagga adduunyada iyo jacaylkeeda albaabkaasuu kaga imaanaya markaasuu adduunyada xaggeeda ka soo galaya jiidanaya mid baa kursi jecel oo magac jecel dhanka magac jacaylka iyo kursiguu ka soo galaya markaasuu duufsanaya xariif weeye waa yaqaanaa mid walba meeshuu ka galuu garanaya aadam aabbaheen aadam xaggee buu ka soo galay yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla aadamu ma ku tusaa boqortooyo waaraysa iyo nolol aan dhammaad lahayn ma ku tusaa waxaad ku gaadhayso aadam ilaahay baa horay uga digay oo ku yidhi iska jire aadam warkiisa waa ku kalsoonaan waay geed haddaad isticmaashood cunto aadamow aad gaadhayso boqortooyo aan dhammaanaynin duugoobaynin iyo jiritaan waaritaan aan weligii aan geeri lahayn geedaad ku gaadhaysa ma kuu sheegaa haa waa ka geedkana cun rabbigaa wax kale kuuma diidine inaad malag noqoto unbaa geedka lagugu diiday bal tijaabi aadam warkii waa ka dhegaysan waay markaasuu u dhaartay wa qaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin wuxuu ugu dhaartay inaan daacad idiin ahay warnimayo idinma sirahayo aadamow maxaan kaa siri adiga daacad baan kuu ahay wax kaa qarsoon baan kuu sheegahayaa ha qaado geedda cun boqortooyo halkanay taallaa aan dhammaad lahayn nolol aan weligeed aadan ka dhimanaynin halkanay taallaa ha seegin aadam waa ka marka waxa weeye ku dhacay wa casaa aadamu rabbahu faqawaa qaar buu marka boqortooyada ka soo geli qaar buu wuxuu ka soo gelayaa xagga dumarka iyo shahwaduu ka soo gelaya qaar xagga xooluhu ka soo gelaya qaar xagga magac raadintuu ka soo gelaya magac iyo wuxuu rabaa inuu yacni mashhuur noqdo inuu caan baxuu doonayaa mid walba meesha daciifkaa ee laga soo geli kariya albaabkiisa wuu garanaya shaqo kalena ma laha walaalayaal marka ninkaasi waa ninka iska jira layna yidhi ee rabbi inooga digay subxaana wa tacaala yaa ayuha annaasu inna wacda allahi xaq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ننكا كذد بدن يوسن إذن كذن إن الشيطان لكم عدو شيطان عدو إذيه فاتخذوه عدوا عدو كنكت
innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi asaciir dadkiisa iyo xisbigiisa wuxuu ugu yeedhayaa inay naarta saciira la galaan oy kala qayb qaataan oo isaga la galaan sidaasunbuu doonayay ujeeddadiisu waa intaa iska jira buu rabbigeenna leeyahay subxaana wa tacaala saddexdaa caqabadood haddaad aragtaan bini aadam lubay oo jidkii jannada ka baxay oo jidkii naarta qaaday asal horta asaas waxaa u ah ibliis baa asaas u ah laba mid buuna u isticmaalay naftiisuu ka soo galay oo naftiisuu u soo maray adduunyana wuu ku lumiyeyoo meesha uu yacni waxa weeye sababta uga dhigay uu ku lunsaday waa adduunyada waa magacaas waa xoolahaas waa boqortooyadaas waa macnaha shahwadaas meelahaasuu ka soo galay saas daraaddeed saddexdaa arrimoodna ha layska jiro ha laga taxadaro jidka jannada iyo macaalimtiisa iyo astaantiisuna waa middaa kadibna waxa weeye dadaalku innagu inala jira oo innagaa laynaga doonaya inaynu dadaalno faman shaa'a falyakfur faman shaa'a falyakfur waman shaa'a falyu'min kadib idinkaa khiyaarka iska leh haddii ninkii doonaya inuu kufriyowna aday kula jirtaa ninkii inuu rumeeyo doonayowna aday kula jirtaa ninkii jidkaa inuu qaado diyaar u ahow ahlan wasahlan soo dhowow ninkii aan rabinowna waxaad un ku talagelaysaa ha riyoonnine qarowga iyo riyada intaad ka baxdo yacni waxa weeyaan jidkaa aad hayse ee nooca ahayni jid aad janno ku gaadhaysa maaha jid naxariis ilahay aad ku helaysana ma ah jid naar ku geynayo cadaab ilahay aad ku gelaysa way subxana wa tacala allah subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca rabbi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo jidka jannada loo maro nuguna sugo nuguna soo saaro rabbi subxaanahu wa tacaala jannadiisa firdowsana ilaahay abaalgud nooga dhigo wixii khalada ilaahay subxana wa tacala inuu naga saamaxo wixii sawaabana ilaahay inuu ajir naga siiyo hada wabillahi tawfiiq wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi waslem